الله الرحمن الرحيم كسر دوادة ورك السعادة تيفيق الشبيلة محمد علي أمريكا سفير كصوماليا وفدية دولة كينيا أيها شيء إن كلها لين وزارة أرمها دبادة دولة كينيا إن أنا دولة دباتين شعب كصوماليات أقول قان دولة سي كدبار كويست جدمال مستر أمريكا أيها شيء إن دولة كينيا أي كداعيان إن وركاسي أي وحلو كلهن شعب كصوماليات بس أي فريان argagixiso oo sheegay in sidaasi oo kale ay qatar uga geysan karaan dalka Soomaaliya safiirka oo hadalkiisii wata ayaa dhinaca kale tilmaamay in ayaga oo dhowr safiir ah ku jooga dalka Kenya ay kulan la yeesheen madaxweynaha dalka Kenya ayna uga tacsiyeen weerarkii Westgate isla markaana uu ka aqbalay in ay weerarkaasi uu ahaa mid argagixiso ee aan wax lagu kulahayn shacabka ku dhaqan dalka Kenya مهدي أحمد حسن قدوميه كحجان كدن كأمنية معمول كدجمة أفجوية قبل كشبه لضوسه دولة الفدرال كصوماليا أي وعو شيء إنه كقول استمامول كدجمة أسي قادة جدجويين شرع الدراء أو أيدكتان سيدا أو شيء ركول بسندريس كعيدا كدولة الصومالية سلامر كان لوجود باتين يي الشعب كصوماليا مرا وضد اسكو حرتام مقدشة أفجوية قدوميها يا شيخ وضداسي إن أيسن هذا ألين واحد سبارة أما دريس رجوة تدريس كعيدا كاو كل باتين يا وضداسي هذا قدوميها يا وحوي معنا يا كده مركي ما نمضي شريعة هاي ده ركول بسندريس كعيدا كدولة الصومالية إن أيسكو ضيان إن جدكويين دكتان وضد اسكو حتى مقدشة يا أفجويه xildhibaan cabdiqaadir dhoore oo ka tirsan guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka Kenya ayaa sheegay in ay la xisaabtamayaan dhammaan hay'adaha ammaanka ee Kenya kadib weerarkii Westgate Mall xildhibaanka ayaa sheegay in dhammaan saraakiishooda ay u yeerayaan isla markaana ay weydiin doonaan sababaha fududeeyay weerarka oo ay geysteen ururka al-shabaab waxa uuna ka dhacay Nairobi ma aha wax aan u dulqaadan karno waa mid sababi karta in saraakiil badan oo ka tirsan ciidanka Kenya ay xilalkooda ku waayaan ayuu yiri xildhibaan Cabdiqaadir Axmed Dhoore oo ka mid ah baarlamaanka Kenya tan iyo weerarkii Westgate ayaa waxa dowladda Kenya ay waday u kurgalista dulduleedyada sahlay weerarkii argagixiso oo ay geysteen ururka al-shabaab warkii saacadu waad kala socoteen TV-ga Shabeelle xilligan waa naga inta Nation waa la hubaayo waa nasteexa dadkeena waa nadka ugu ballaaran geeska aynu ku noolnahay shicibkay u naxdaayo qiimaheena sishaa haddii aad ku nagaatana moolka ku murxaya hamoogaan Nationlink shirkadda isgaarsiinta Nationlink waxa ay ku soo kordhisay adeegyo aad iyo aad u casri ah oo ay ka mid yihiin adeegga email lacagtaad haysato ayaad ku iibsan karaysaa ku kaydsan karaysaa kuna xawilan karaysaa waa ku iibso ku kaydso ku xawilo waxa intaasi ku dheer isna ogaal oo aad ka helayso macluumaad iyo xogo fara badan oo dunida guudkeeda ah waxa ku sahlaya hanaanka ogaal ee Nationlink ay ku soo kordhisay waxa intaasi ku soo raaca waliba Nation Top daclada dunida oo dhan ayaa laga soo hadli karaa si sahlan iyo waliba qiimo aad u hooseeya international roaming ayaa iyana kamid ah adeegyada aadka u casriga ah ee aad ka helayso Nationlink hamoogaan Nationlink